الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta taariikhdu waa 18 bishii 8 sanada 2024 sida boorka aad ka aragteen. waxaan halkaa maanta ku qabanaynaa munaasabad aad u ballaaran oo nooceeda oo kala ah tii ugu horeysay ee lagu qabto wadanka Holland. waxaa ku soo dhawaataan magaaladan quruxda badan ee Isqadaam oo nasiib u yeelatay in munaasabadan lagu qabto. waxaa sidoo kale aan munaasabadan ugu talagalnay sanadkan maadaama uu tahay sanadkii ugu horeysay ee CMD Award inaan ku abaalmarino dad qiimo badan oo sharaf leh oo bulshadan Soomaaliyeed ee qurbo joogta gaar ahaan Holland iyo waliba Jarmalka oo aan filayo in hal qof kaga jiro aan ku abaalmarino waxqabadkooda. waxaan loo soo bandhigay muddadii 4 bilood ee aan barnaamijka wadnay ugu yaraan ilaa iyo 37 qof oo isugu jira dumar iyo ragba, kuwaas oo la sheegay inay gabihaan waxyaabo badan u qabteen bulshada Soomaaliyeed haddii ahaan lahaayeen inay sameeyaan ganacsi guuleystay, sportiska, haweenka iyo dhallaanka wax u qabtay, horumar badan ka gaaray iyo waliba kuwa sameeyay ganacsiyo la taaban karo oo ka jira gudaha dalka Holland iyo waliba meel ka baxsan Holland gaar ahaan Soomaaliya. dadkaas qiimaha badan ee hadda aan halkan ku soo xulnay waxaad arki doontaan waxyaabihii ama kriteerigii aan ku soo xulnay iyo sida aan markaas ugu soo dhax saarnay 37 qofood ee noo soo gudbiyay. qof walba oo halka imaan doono oo maanta la sii doono abaalmarintaas waxaad arki doontaan sida aan ku soo xulnay ayadoo uu noo sheegi doono wariyeena Ismaan Balaad oo report yar aan ka diyaarinay. waxaa sidoo kale aad arki doontaan dadkaas oo hadlaaya oo halkan soo istaagay oo ayaga naftirkooda markaas ka hadli doono waxyaabihii ay qabteen, shirkadaha ay leeyihiin iyo waliba sida ay markaasi ay u dadaaleen. waxaa sidoo kale jirta dad hadda naga maqan oo aan u soo xulinay in aan maanta abaalmarin halkan ku siino laakiin naga cudur daarto. waxa ugu weyn oo aan u mahad celinaynaa adeerkeen walaalkeen Cabdulqawi oo ah nin bulshada Soomaaliyeed qiimo badan ku leh, madax ka soo noqday ICJ-da ee dalkan iyo guud ahaan internationalka maxkamadaas oo caalamiga ah, oo naga soo cudur daartay oo nala soo xiriiray wuxuu nagu yiri waxaad salaan ii gaarsiisaan bulshada ka soo qayb gashay munaasabadan. waxaan u mahad celinaynaa si gaar ah ayaan asagu u mahad celinaynaa. waxaana arki doontaan haddii aan nool nahay sanadada dambe inuu noo yimaado. ma rabo inaan ku dheeraado in dadka abaalmarinta la siinayo aan sii faahfaahiyo. waxaan jeclahay in aan wax yar aan ka taabto CMD. CMD maxay tahay? Center for Media and Dialogue ayaa lahaa markii loo Soomaali loo turjuman waxaa waaye xarunta wadahadalka, xarunta saxaafadda iyo wadahadalka. xaruntan waxaa la aasaasay 3 May sanadii 2015. waxaan ku aasaasnay magaalada Rotterdam ee wadanka Holland. munaasabadaas ay ka soo qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Holland dhammaantood, gaar ahaan dadkii markaas ururada wadankan hogaaminayay iyo waliba marti sharaf garay. waxaan filayaa dad fara badan oo munaasabadan 9 sano ka hor ka soo qayb galay inay halkan fadhiyaan. santarkan wuxuu qabtay doodo la xiriira siyaasadda, arrimaha bulshada, dhalinyarada, kuwaas oo aan ku kala qabanay wadanka Holland iyo Soomaaliya, Nairobi oo Kenya ah. ayadoo doodii ugu dambeysay ee dhalinyarada European-ka ku qabanay magaalada Batumi ee wadanka Georgia, taas oo ay noqotay mid weyn oo caalami ah. santarkan waxaa aasaasay dhalinyaro wariyaal ah oo ku soo qaxday wadankan markii burburka gaar ahaan wixii ka dambeeyay 2007. waxaan rabaa wax yarna inaan idiin murjiyo dibna idinku celiyo. santarkan dadkii aasaasay oo maanta dhintay waxaa ka mid ah walaalkeen Cabdullaahi Jaamac Cali oo 20 October 2022 ku geeriyooday qarax ka dhacay Zoba. waan u duceynaynaa walaalkeen, saaxiibkeen,
asagoo halkan joogo naga guuray wuxuu aaday England kadib wuxuu aaday hooyadiisu soo fiirinaya Soomaaliya ku dhintay waxaa sidoo kale dadkii centerka nala aas-aasay ku jira nin la yiraahdo Maxamed Axmed Fiyaad oo markaasi maanta naga maqan isagana waxa dhawaan geeriyooday aabihiis wuxuu aaday magaalada Muqdisho dhamaantood u duceynayna dadkaas walaalaheena ee Soomaaliyeed qaybtii mahadcelinta waxaan u mahadcelinayaa dhammaantiin dadka halkan ka soo qayb galay oo ugu horeeyo ra'iisul wasaarihii hore dalka Maxamed Cabdi Yuusuf oo markii aan u dirnay fariinta invitation-ka ah oo naga aqbalay si weyn nooga aqbalay oo yiri waa idin kala soo qayb galaa maadaama dad Soomaaliyeed aad siinaysaan award ama abaalmarin sidaas darteed waxaan nala fadhiyaa halkan dad sidoo kale qiimo ku leh bulshada oo aan rabo inaan xuso waxaa ka mid ah Mrs. Sofia Roble van Duurson oo ah gabar Soomaaliyeed oo wadankan caanka ah oo looyarad ah oo si weyn loogu yaqaano markii aan u bandhignay in aan nagala soo qayb galmaashkan waa lagu xushay waxaan ku xulanay dadka aan siinayno abaalmarinta qiimaha badan ay naga aqbashay wayna noo timid maantana waxaan siin doonaa abaalmarin dhammaan dadkan waxaa sidoo kale ka mid ah oo fadhiya Magan Daahir oo aad taqaanaan sidoo bulshada wax badan u soo sameeyay waxaa ku xigta gabar da'yar ah oo la yiraahdo Nayrus oo ayadana looyarad ah oo wax badan bulshada u qabatay ayadana waxay ka mid tahay dadkan soo xulan waxaa ka mid ah Shukri Sheekh Xasan oo aas-aastay ururka haweenka iyo dhallaanka ee Iftiin ee magaalada Amsterdam hooyooyin badan iyo caruur badan caawisay waxaa ka mid ah Kaadir waa nin ka mid ah ganacsatada wadankan oo sameeyay markii ugu horeysay Kaadir Halal Food oo meel walba lagu qado albarteenka dukaamada caanka ah ee wadankan oo dhan waa ninka Soomaaliyeed oo kaliya oo naga bareejay ganacsatada caalamka waxaa sidoo kale ka mid ah dadka aan u soo xulanay maanta in abaalmarintaas siino hogaamiyihii hore ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Holland mudane Cali Waare oo dadkii barnaamijka xulayay markii ay ku soo dareen ay u xushay inuu ahaa ninkii ugu dheeraa ee hogaamiyay ururkan wax badan qabtay waxyaabo badan ka soo gudbiyay ururkan sida uu sheegay gudoomiye askarina ururka oo nadiif ah oo wax deen lagu lahayn ka tagay saas darteed CMD ay xul waxaa sidoo kale aan xulanay oo la soo xulay kaaha xalanay oo ah dadkii dhawaan soo galay wadankan isla markaasna wax weyn ka bedeshay dhinaca Zorko wax loo yaqaan Amsterdam waxay sameysay shirkad weyn oo nurses-ka ah saas darteed waxay shaqaaleysiisay dad fara badan oo Soomaaliyeed ah waxay tababartaa dhalinyaro badan oo gabdho u badan oo waxay ku tababartaa dhinaca caafimaad ama Zorko ama nurses-ka si ay shaqo u shaqeystaan waxaa kaloo jira oo aan xulanay wiil dhalinyaro ah oo wadanka mar dhow yimid isla markaas si degdeg ah oo ku noqday successful oo lagu magacaabo Maxamed Bashiir uu naga maqan yahay video soo diray wuxuu noqday wuxuu matalaa wadanka Holland honor consul ama consul sharafeed ayuu wadankan ku matalaa saas darteed waxaan u xulanaa asagana inuu maanta ka mid noqdo dadka guuleystay waxaa sidoo kale jira waxaa aragteen in Soomaaliya laga furay bangiyo badan oo u shaqeeya si caalami ah bangiyadaas dadka furay waxaa ka mid ah qof halkan ka tagay qaxooti ku yimid oo halkan wax ku bartay Soomaaliya ku noqday kadibna bangi weyn oo furay oo la yiraahdo IBS Bank qof walba Soomaali tago waxaa la dhaca Cabdirsaaq Cali ninkaasna waxaan u xulanay in asagana waxaan sidoo kale siinayna oo abaalmarintan aan rabnaa inaan dadka aan siinayna ka mid ah Cabdi Nageeye oo ah wiil dhalinyaro ah wadanka soo yaro qaxooti yimid dadaalay Rotterdam Marathon ku guuleystay laakiin hadda nasiib darro markii Olombikada ee Faransiiska dhaawac soo gaaray dartiis asagoo ordaya oo ka haray waa naga dhaawacan yahay dhaawac waaye waa u duceyneynaa waxaan filayaa maanta asagoo faraxsan inuu halkan soo istaago
oo barnaamijkan ka qayb qaato laakiin waa imaan waaye sidaa darteed wuxuu noo soo duubay cod ama video halkaana kasii dayn doonaa waana u mahad celinaynaa dhammaanteedna waa u mahad celinaynaa waxaa sidoo kale ka mid ah dadka aan u xulanay inaan maanta barnaamijkan qiimaha leh ama xafladan aan kusoo dhaweyno ayagna abaalmarin aan ku siino cumar faaruuq ama iyo abubakar oo ah laba wiil oo dhalinyaro ah oo wadankeena Holland waxaan dhana shumaca u shiday maalin jir wadankeena Holland shumaca u shiday daaciye ah dad badan oo Soomaaliyeedna ay yaqaaniin Europe ilaa iyo Afrikana laga yaqaano wax badan qabtay laakiin maanta kuma abaalmarinayna inay wax sameeyeen laakiin waxaan ku abaalmarinaynaa waxay fureen shirkad caalami ah oo barfuunada sameeyso oo la yiraahdo ya salaam taas oo meel walba adduunka gaartay maadaama anaga brand Soomaali aan leenahay oo shirkadaas ah waxa u maleynaa brandigi ugu horeeyay shirkad Soomaaliyeed oo barfuun sameeysa inay tahay hadii mid kale jirto oo sheegi kartaan laakiin si wanaagsan na u socoto waan u bandhignaa ayagana guddiga noo soo xuleen marka u bandhignaa waa naga aqbaleen in abaalmarinta siino nina halkaas u gabana waxaa sidoo kale ka mid ah dadka aan usoo xulanay munaasabadan cumar muuye oo aad taqaanaan oo aad caan ugu ah qaaradan Yurub wax badanna sameeya boorsooyin ayuu sameeyaa oo gacanta lagu sameeyay iyo weliba kuwa kale oo ay gataan dadka ugu caansan wadankan ay ka mid tahay xaaska ama boqorka xaaskiisa wadankan iyo weliba dad kale caalami waa wiil Soomaaliyeed oo horumarkaas weyn balaaran sameeyay tan ugu dambayso dadka halkan oo qoran waxaa ka mid ah media dama anaga media naha xoogaa inaan kusoo darsano waa sama waxaan kusoo darsanay television la yiraahdo Arladi TV telefishinka Arladi TV waa unique waa ka duwan yahay telefishinada kale ee Soomaaliga wuxuu ku hadlaa afka May Soomaali waxay dhahdaa May in xatir Soomaali wuxuu ku hadlaa afka Mayga taas oo ay aasaaseen laba nin oo dhalinyaro ah oo media ninna waa siyaasi ninna macallimiintii media oo kamid yahay qoraal sare wana la jooga Ilyas Ali Hassan oo ah ambassador hadda la magacaabay oo maanta naga cudur daartay inuu soo imaan laakiin waxa yimid mid kamid ah dadka aasaasay fikradaas keenay Abubakar Al-Badri oo khudbad jeedin doono Sweden ka yimid halkan ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo shirkadihii barnaamijkan u jeedaan quruxda badan hoolkan hotelkan iyo wax walba tasiilaad ku bixinay ay ugu horeyso shirkadda Al-Hijra ka diiwaan gashan wadankan wax badan qabata sida umrada iyo xajka magaalada Rotterdam South Brain xafiiskeedu yahay waan kaga mahad celinaynaa kaalintii ugu weyneed ee ka qaadatay barnaamijkan waxaa sidoo kale shirkadaha kamid ah bankigii aan sheegnay IBS Bank oo aan niri waxaan nahay dhalinyaro ku nool Holland waxaa tihiin dad Holland ka guuray wax badan sameeyay waxaana inaan saacidaan waana saacideen gacan fiican ay nasiyaan barnaamijkan taabagelintiisana qayb weyn ka qaateen Cabdirasaaq IBS Bankina waa mahad celinaynaa waxaa sidoo kale u mahad celinaynaa Soomaaliya dadkii tagay way arkeen Hayat Market oo ah shirkad ama supermarket weyn oo dad Soomaaliyeed ay sameeyeen oo u shaqeeya sida supermarketyada ka jira wadankan ama caalamka kale ayagana wayna taageereen waxaa sidoo kale taageero weyn siiyay shirkadda ya salaam ee Cumar Faaruq Cumar ayagana sponsor ay siiyaan waa mahadsan hilmaan hadal kuma jiro waxaan ka tagay nin weyn oo walaalkeen ah oo dadkii la soo xilay ku jira oo Hollandees ah oo wax badan ku guuleystay filmaan badan oo Netflix ka xataa galay oo Soomaali badan daawada sameeyay Ahmed Farax oo sameeyay filimka Arday ayaa la iyo filmaan kale oo asna aan siin doono ayadoo shirkadda filmaanta sameeysan oo qayb ka yahay ninka la yiraahdo Cabdi Malik oo halkaan fadhiya
وصاحب كان أو مهد علينا وحبضنا يقتل مدانا وأحمد مقيهاي وحنو جوج عبد الملك صاحب كان مجن ظاهر واشاقي وكسو قبقبينا يا مجن سودو ضدك قيمها بدنا كجرتا وسوين أو تحقلينه صومالي بدنا كنت حقليسو وحوكم ده ضدك كوجولستي كوبدا ميسكا سنة كهر سادرتي أسجن وعبال مرينا maadaama kaalin weyn oo dhinaca sportiga ah oo qaatay waxaan u mahad celinayaa guddigiisa oo ka soo shaqeeyay barnaamijkan oo gabdhi iyo wiilal leh oo halkaas jooga maanta dhan waraaqadaha naga qoraayay dhammaantood oo mahad celinaa Usman Balaag oo mahad celinaya waxaan sidoo kale rabaa inaan ka tagin walaalkay Maxamed Weerow oo soo xaladhan shaqeynaya naga aqbalay in maanta music meeshaan uu noogu garaaco qalabka farsamada noo keeno na saaciday garabkeena istaagay walaal macaan oo maasan tahay waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo Maxamed Cabdi Yuusuf ra'iisul wasaarihii hore ee dalka si khudbadiisu u jeediyo Soomaaliya ha noolaato cadowgooda ha jabo heeska Soomaaliya toosli oo wax dalka lagu xooriyo way ma garad sida daraadid markii la isjiimaado inta la istaago in la qaada loo baahay marka ugu horeysa aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan qiimaha badan oo lagu xusayo dad qiimo badan oo Soomaaliya oo wax qabtay ama lagu siinayo aad baan u ayaan u faraxsanahay inaan mataqaanaay aan ka soo qayb galo waxaan jeclahay marka in yaro kooban in hadalka ku soo koobo waxa weeyse si sheegaymayno dalkeena iyo dadkeena meeshii marayaan meeshii ugu xumayd baan marayna taariikhan naxdinta ugu xumayd baan ku jirnaa maanta Itoobiya oo dalkeena nus haysata ayaa mid rabtay inay badeeni qaadato tay soo duusho waxaasoo kale waxaan mataqaanaa ay sheegeen taariikhda Soomaaliyeed aan soo marin weyn waxaana keenay innaga oo isyeelay sidaas cadowgeeni inuu markaa oo awalba dalkeeni nuskiisa haystay inuu soo dhigto badeeni dalkeeni oo naga hel dad sabcinay soo dhawaysanay sida daraadeed waa inaynu mataqaanaa ka dhiidhinaa foolxumadaas iyo shaqajaannimadaas ummadda Soomaaliyeed mataqaanay loo horseedayo waxa weeye xorriyadda wax loo soo maray iyo midnimada wax loo soo maray iyo wadajirka ummadda wax loo soo maray wax laga sheekayn kara ma hadda bilaab ilaa berita way soconaysa sida daraadeed dadkeena Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay inaysan hilmaabin dalkoodii inaysan midnimadooda sharaftoodii inaysan hilmaabin baa loo baahan yahay wadajirkoodii inaysan hilmaabin baa loo baahan yahay wixii qalad la galay waa laga mataqaanaa waa laga soo noqdaa adduun civil war ka dhaca waa la dagaalama laakiin waa la soo noqdaa aakhirka waana la saxa qaladkii la galay laakiin laguma sii socdo hadda maxaan cagaha gelinay 40 sano ku sii soconnaa ku dhawaad burburkii iyo dabagalkii iyo baabi iyo wixii oo dhan maantana waxaad arkaysaa mataqaanaa federazione tribale wax la yiraahdo loo keenay federazione tribale qabiil ah federazione qabiil weey shanta Soomaali u dagaalameynay labadii 60kii midowday oo jamhuuriyadda Soomaaliya aasaastay ayaa waxa loo qaybshay intaas oo mataqaanaa gobol oo muxuu yahay president waxa la leeyahay gobol hebel madaxweyne hebel madaxweyne hebel madaxweyne camal madaxweyne hebel waa ka baqay biloway madaxweynayaal maaha federazione ilaahay nooma abuurin shaqada kuma lihin ilaahay nooma abuurin shaqada kuma lihin jinsiyada kala gedisan manihin diin kala gedisan manihin dhaqan kala gedisan manihin hal ونشي baana dadka adduunka u nasiibka badan baana laakiin aan ka faa'iideysay nasiibkooda oo waxay sugihiin iyo wax ka dhaxay aan garanin baan noqon aqal xumaan qaaday qarannimadeena midnimadeena qabiil iyo qurun baa dilay qabyaaladii qarna meel ma wada gali karaan waa in qabiilka iska deynaa oo aynu mataqaanaay qarannimadeena midnimadeena u soo laabanaa way halkaan dal baynu joognaa bal dalka hal joog ma ku dayanaa holan dhulkeen 5 meel 15 hadii loo dhigo hal meel ka joogtaa
إلهي وحو نسيين إلهي مسين بد مياه تراها بري مياه تراها حول مياه تراها وحول با أي إلهي نسي ساقا حوتي بان هالكان صوي عن تدل كيني بربورنا كسو تغني بان هالكان سونو سياد درادد وحا لو باهي هاي إن دادك ديبادة السؤالي أي كود يصدان أما أركان دلالك يمادين سيدا أدغم هاي وحيهين سيدا الكون رباي marka lagu celiyo marka dalkii lagu rogal celiyo oo dib loogu laabto oo ma garanaysaa in sheeg dadku midnimadiisa wada jirkiisa laga shaqeeyo qabiil iyo qaran meel wada gaali karaan waa dab iyo bensiin weey qabiil iyo qaran ma wada noolaan karaan shaqana isku ma leh qaran dumis waxa la bulwanka qabyaalada ka madaxweynayaal beenoo ka baqabiilaan samaysan mid walba gool meel inta la tacaalam meel ka tag madaxweynana كنا ما يلهي ما يلهي ساس ما يلهي أودي دول دحين من دماغي ماشي وكبح وروح حاسميا وحلوات كيسا كرا فول حما يشرف دروي وإلى إنه متقانا يدك الدبد السؤالي أي كفع الغاتان دلك أي مادين هرمرك جار هيان سيو شقين هيان إلى أركان أحساب يفكرك اللي تسبب جالك وحكم السيد بالدماغ دلك ودوجير كود سوساس ما ميكو ميسكا سورجا هولن ميسكا سورجا دالك إلا بربرشو قال جوجوينا يماجره سيدا درادد وحوي دادك الدبد السؤالي إلى كفى إنسان أو أركان دالك إنه وحنا نوكر اللي أركان لبعين أنت أسدبديد وحروا إن حفلة قيمها له دادك إنه هو يري أو المنطقة اللي كان سوق قال لي إن أنا وهم بليو شغال أي قبتين وشقون أكسن ومدننا مع الصومال ما هو لون باهي هي إن منطقة أساس لسوء أباب لسوء ماذا أو منطقة لسوء حجليه أو لسقيميه أو لسأبال مريه وضلك يمدويس والشركة الصومال لما دل لقاش قيين لون باهي وأدبر دوما تنتين هرم تعيضة وهرم منطقة نايل ومارمانا والرود ينكره لوف ينكر دبد يقول بدلك دبديس سياد درادد وحنا سامبليين هي والله هالكان أبا وشي مانت حفلة قيمة على السميسي ودتك أبا المرينيسا وناق السمية وديري قلينيسا أدبن وأبا العلمية هذا البدن وما إيمان مركب ماشا صوماليا عنو لا تو هذا هو مدى صوماليا هبابو هلا هواي من نماذج وزيركم بدسو هالنو رحمة الله وبركاته ninku waa igaaday markii hore waxaan isla dadka dhexda laga gelin doonaa laakiin dabka mar hadii aad noqoto qofkii ugu horeeyay dabka la geliyo waxay ila tahay war badan waa galabta iga heli doontaan magacaygu waa sida uu idin sheegay Cabdulcaziz Ali Ibrahim laakiin Soomaalidu waxay ii taqaanaa Cabdulcaziz Xildhibaan waxaan deganahay magaalada London ee dalka Ingiriiska waxaan jecelahay inaan bahda warbaahinta xarunta aan iraahdo warbaahinta iyo wada hadalka Soomaalida ee saldhigeedu yahay magaaladan aan galabta martida ku nahay inay igu casoomaan kulankan qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee quruxda badan ay galabta ka muuqdaan kaftanan ku darsanaya hadalkayga ninkii aan aqoon Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu ka mid ahaa marka aan uma tilmaamayo daadiisa laakiin dadkii u soo halgamay dawladnimada Soomaaliya waa nasiib darro isaga oo dalkiina degan inuu noqon waayo qofkii ugu horeeyay ee golaha laga sheego waa ku talagalay sababtoo ah waa sida uu idin sheegay bil qofka aan taariikhdiisa waxba ka aqoon waa adag tahay inuu wax ka barto taariikhda dadka uu la joogo marka ninka aan Maxamed Cabdi Yuusuf aqoon galabta ha barto wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyay xukuumadii ku meel gaarka ahayd ee madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan ee dib loogu yagleelay dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya galabta anigu inaan iska hadal halkan uga joogo waxaan u joogaa inaan marqaati ka noqdo halganka ballaaran ee dadkii nagu sharfay inaan qayb ka noqono galabta marqaati ka noqono dadka Soomaaliyeed ee taariikhdu ay xustay muddadii ay joogeen qurbaha ama
ay qeybta ka ahaayeen ummadaha khasabka ay nagu noqotay burburkii dowladdii dhexe kadib markii dadkeenu ay yimaadeen dad muuqda oo Soomaali ah oo xildhibaano leh oo gudoomiyayaal anagu xoogaa Ingiriiska waa idinka roonahayo waxa ay marqaati kacaya walaalkay anagu waxaan gaarnay inaan noqono not only local councillors yani xildhibaano golaha deegaanka ah kaliya anagu ma noqonin waxaan gudoomiyayaal ka noqonay degmooyinka 34 ah ee ku yaala magaalada London iyo guud ahaan dalka Ingiriiska waxaan idin rajeynayaa idinkuna sidaas oo kale in ay soo bixi doonaan dad Soomaaliyeed oo dadka aan maanta sheegayno ee abaalmarinada la guddoonsiin doono kamid noqon doona sanadka ku xiga in yar aan anigu laftayda wax iska sheego muddadii aan joogay qurbaha ma sheegahay sababtoo ah gabdho badan meesha jooga hadhow da'da noqonaysa mid gelisa albadrin halkaas uu ka qoslayaa ma sheegayo laakiin waxaan qoray 49 buug oo ah taariikhda dhaqanka suugaanta Soomaalida ah 37 buug oo kamida waxaan u qoray caruurta Soomaalida ee ku dhalatay qurbaha waxaan rabaa inaan galabta idin sheego ruux aan afkiisa aqoon waa adag tahay inuu wax la wadaago war Nuuridiin Macal Muqtaar Diino waa meesha jooga waa ii dhuntay waa ku salaamay qofka aan taariikhdiisa waxba ka baran afkiisa aan waxba ka aqoon waa adag tahay ummadaha uu la joogo ruuxu waa yeeli karaa soo saas ma Soomaalida tiraahdo socod aan lahayn soo saas ma afafka waa ku hadli karnaa dalalka aan martida u nahay ama aan dhalashadooda haysano ama aan Ingiriis ahaan ama aan Hollandees ahaan ama ummad kale oo halkan galabta nala joogta oo ka yimid wuxuu ahaa deegaanada kale ee Yurub waa ku hadli karnaa afafkooda laakiin inaan ka dhex muuqano waxay u baahan tahay shaqo adag dad badan oo Abu Bakar iyo Umar iyo ay ku jiraan oo marka iyaga la arko Holland la soo xasuustaa jirto soo saas ma waxaan anigu ma raba inaan hadalka idinku badiyo waa la igu gaaday ujeedkaygu waxay ahayd ixtaalka marka la igeliyo wax badan inaan sheego 49 buug ee aan qoray ee ku saabsan aan idin sheegay 37 kamid ay yihiin kuwa aan ugu talagalay in caruurta afka Soomaaliga ay ku bartaan ku dhashay qurbaha kasako waxaan qoray 12 buug oo ka hadlaya taariikhda dhaqanka fanka iyo suugaanta Soomaalida waxaa ku jira buugaagta suugaanta marka aan leeyahay gabay guurow geeraar shirib masafo hees noocyada suugaanta Soomaalida ay u samaysan tahay oo dhan waxaan ugu talagalay ma aha oo kaliya dadka halkan jooga galabta waxaan ugu talagalay inay noqdaan ambiyada Ilaaha soo diray soo saas ma ninba hadda koor wuxuu yiri Ilaahay naxariistii jannaas iyo Maxamed Siyaad Barre nin aan qaraabanahay oo u gabiyay moogtahay Soomaalidu khasabkay wax ku leedahay mararka qaar wuxuu yiri maxaan kugu adeecnaa ma tihin nabi Ilaahay yani gabay dheer oo tirinayay tabashu qabay Soomaalidu suugaantay wax ku sheegtaa hooyo aan ubadkeeda fahmi karin oo halkan joogta ama aabe aan ubadkiisa fahmi karin oo halkan jooga sidee suurtagal u noqon doona fac koowaad hadduu fahmi waayo isfahmi waayaan kee sidee ka labaad iyo saddexaad inuu Soomaaliya loogu sheegayo dalkan wali wuxuu ku jiraa halganka sidii uu heli lahaa hanaan xasiloon oo dawladnimo oo ka hana qaada isu tag kasta oo kan oo kala ah oo aan isugu imaanana annagu qabyaaladii waxba kama tarayso waxaan rabaa gabay yar inaan ku soo afmeero hadalkii aan dheeraa aan galabta ugu talagalay halkan inaan ka jeediyo wuxuu ahaa maantoon da joogiyo intaan doob ku hana qaaday dad Soomaaliyeed waxaan ahayn dood kumaan gelina yani waligay Ilaahay hadduu iga yeelay kuwa la igu tirtiri la ii tiriyo ee qabiilka ah aniga in wax la igu yeelo ma aha adna qabiilka lagu tirinayana wax kugu yeelo ma aha ma rumaysanaysaa maanta gudaha magaalada London anigoo jooga markii iigu horeysay dhowr sanadood kadib safarkii aan saaka halkan ku imid baasaboorka Ingiriiska aan wato isla magaalada London gudaheeda ayuu iiga dhuftay inaan ka soo dhoofay muxuu ahaa soo raacay trainkan loo yaqaan Eurostar waxaan soo maray Soomaaliya
ingiriiska faransiiska belgium hadda waxaan joogaa netherland ilaahay baan idinku dhaariyey aadanuhu halkaasi u socdaan markaasaan anigu waxaan leeyahay intaa yar haddii la iga goyn karo waa fiicnaan lahayd kabtanaan ku daraya anigu muxuu itaray ama itaraya ama ubadkayga halkan ku dhashay taraya qabiilka ay yihiin waxba wallaahi waxaan ku guuleysanaynaa cabsida ilaahay waxaan ku guuleysanaynaa ilaahay wuu ku abuuray inaan qabiil ahaano wax naloo doortay ma aha dadka halkan jooga waxaan galabta uga markhaati kacayaa tirada dadka soomaalida ee qoys kasta leh ee halkan jooga ujeedkoodu muxuu ahaa oo ay dadkan usoo xusheen ma ahan inay isku qabiil yihiin waa abaalmarin ay ku dhiiri gelinayaan dadkii ka soo muuqday dadka Soomaaliyeed dhexdooda waa mahadsantihiin waxaan idin leeyahay soo dhawaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تصنتهاي وكسر دواهي وحنا حلبان مجال نايميخن دالك هولن عبد العزيز حلبان هذا الله كفتمو أفر حلبان بالنا هاي لكن وحلنا فتها وزير مجال دنها وعاصمة سدحات وطن كائه ممكن إنجليز كحنا علينا أنا بايجين دون إن شاء الله taas ka badan waan ku faraxsanahay maanta qabitaanka la qabtay sababtoo dadka qaarkood meeshaas ku qoran wadadan aqaano jidkay soo mareen aan ogahay in la dhihin geliyo maanta la dhaho waa niilmaad cilina waa wax wanaagsan oo aan jeynay sanad kood inay noqonin ee sanado badan loo suubiyo insha Allah sidaas aan jeynay insha Allah mahadsantiin waa kiisaas ku soo keena السلام عليكم هذا أمة سنتي هرتا مركو جارس وحارة أنا أمة علیو CMD شقف عنه بلادين أو معناها أنا جان هرو سمين شيء نهيد أجيفرس أول لكن والسكوت هي بقى قرية مرك إني سي وضعن ماركته أو ما أنت ضد كان أنت لوسو اللي بيسهل كلام هذا أمة سنتي وحارة مرك إن أنا أمة علیو دمان هرتا عنده مركلة congratulation ضد كل صاح حلي أو أحد جهين خلنا معناها حديقين ضد بدنا يجرو لكن مرة بقولها هاد بالسواق هذا وحين ليه هاي congratulation وحلو باهي شقدا إن لقسي بديو ماشي لقسي بدي تاهرت مهم وحارة مركا أنا مرة بحن كهلا دياسبرها هردنا وقها أو دياسبر وكسو شقي سبورت وكسو شقي هذا حلواني ما هذا إني كنت أجرها ماشي ومعنا كوفي ده يجوا اسك بديهين لكن هذا متكم بدهم بيا وحوا إنا هاي حلوان سياسة كوجيرو وحنا أركي إنه مهم تها إنا سياسة دقمة واي because haddii anaga aanan siyaasadda gelin waa naloo talinaya waxaan arkay markaan ka shaqeynaa organisationada maalin walba inaan policyga ama balaaydka oo dad ay soo sameeyaan inaan fulinayno annaka marka dadkeena Soomaalida 40 kun ku joognaa wadankan 40000 bal 40000 awood ay leedahay fiiri haddaan isku xiranahay baarlamaanka waxaan geysan karnaa dad waxaan geysan karaa in dadka Soomaaliya ma aragtay xataa Soomaaliya wax u qabano marka horta taas muhiim waaye siyaasadda taas ay ugu qasabtay وأكون فرحسنا هاي خرونيكس أنا خرونيكس بيفيدا هنا ضو أصيل خرونيكس أو نايم يخنا جوجو معنا ضد بدنا خرونيكس كجري بيفيدا أنا وجوه سأو بدنا هاي خرونيكس بيفيدا أنا هاي وأكتي إن أنا هاي حسبي الله بعض وهذا ما أرد ودن كجوجا أو هذا نصوص عضو حق كرؤس عضانا هاي مركو حنرجينا صومالي أهان وحنرجينا we shall overcome وحنكم غني ماثر لوثر كينج إن كبحنا أرنت سياسة أو كسليسن قبيلك أو ودن كسومالي لقصو سماية أو هالكارا لكو قيبيو إنا إسكو تيرسانانو إسقبسانو wax walba oo jiro ina macnaha aan Soomaali ahaan ku talino oo ma aragtay waxa kale aan ka baxno marka taas aad ugu rajeynaya mid kalena siyaasadda waxaan rabaa dhalinyaradeena maanta maadaama dhalinyaro badan ay fadhiyaan waxaan rabaa siyaasadda in la soo galo siyaasadda waa meesha lagu gooynaayay waxa lagu gooynaa waxa tahay waad ogtahay maanta Khayr Wilders inuu haysto wadankan muxuu rabaa marka Khayr Wilders wuxuu rabaa inuu xiro masaajidadu rabaa inuu xiro wuxuu rabaa gabdhii qamaarka wata inaysan aragtay ay iskuulku aadi karin wuxuu rabaa dugsiyada quraanka in la xiro migration ko dhan iyo fuluqtalinka wax walba ayaga haysta problemka maxaa keeni kara marka inaan anaga taas uga hortagno waxa keeni kara inaan codeyno inaan aadno warqadaha qaadan aan codeyno siyaasadda galno dhalinyaradeena wadankan ku dhalatay oo luqadii taqaano oo meeshaan ma aragtay anaga waxaan ahay first generation generation ugu horeeya ahani oo halka imaad macna dhalinyarada inta ku dhalatay oo wadankii taqaana waxa siyaasadda maxaan ka doonaanay taas in laga baxaa way marka waxa waay dhinaca siyaasaddan aan galno entrepreneurship iyo ma aragtay waa ku faraxsanahay maanta in adiga aad joogtid oo nin ma aragtay albertahanka alaabtiisa dhan ay taalo oo marka arka aan ku farxayo aad khadiir aad ugu faraxsanahay kulli dadka dhan ma aragtay hawsha ay qabteen marka waxaan leeyahay walaalayaalo gacmaha isqabsano Soomaalinimada wax walba ka weyn dadkeena Soomaalinimadeena ka weyn aan gacmaha isqabsano siyaasadda wadankaas wax uga qayb qaadan lahayn si aan wax ugu tarno wadanka aan ka imaanay
marka intaasaa uga baxayaa waxaan rabaayoo kale adeer maxamed cabdi yuusuf inaan dhaho adeer aad iyo aadaa umahadsan tahay wiilkeenna halkaan fadhiyo oo weerow asagana maasha allah ma la hilmaami karo asagana muusiga lagu soo dhaweynayo iyo dhammaan dad kale oo halkaan jooga aadaa umahadsantihiin بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حوجا مايكروفون شوك هذا يقول أردت أن يقرأ له هذا لو أصلاً يكبرن كما حلين مركان هول كسوق على لما شيء رنتي فرحت جلسي شيء كوات وحنا أركي قفل بو أنا قانو هالكم فردية مركان رنتي وحي كنت سنة يسا إن الكلية هين ضد درالك إيجوجان كلية سامين كلها إن تهين ضد فرحه هذا صومالي اللي جه اللي كرو سئون مركان ولا شيء فاضي ما كبلابو كسوريك إجابة درس نقولنا مركان ماشى فريستي لنا عن فيريابا وضدنا قاننا مركان رنتي تاسو حيت سنة سنة رنتي هرمود كي بالشدة تهين طلباتنا ما جنوا سلام هيا طلباتنا وحيتها هاي ويل كان تجنا هدلاي مركان الباب كسوق علي وحكى هدلاي إنه تاكسي كسوق بالله marka taxigi aniga sheeka na dhaxmartaan idinkaga sheekeynaya kuma soo garaadsan dawladnimo Soomaaliyeed kuma soo garaadsan nidaam iyo system aniga waxaan xasuustaa markii ilkaha la iga riday xitaa wadanka waxa joogtay UNISOM joogtay ciidamo shisheeye joogay hadda on bil ka soo maqanayna ciidamo shisheeye jooga marka taxigi aniga xiriirka naga dhaxeeyo waxa waaye waxaan xasuustaa noloshayda markii ugu horeysay ee familka lacag loo soo diro waxa soo diray adeerkay oo tahriibay oo safar badan maray oo Australia tagay markii dambe ayaa taxigu ka xamaalay nooga soo diray biilkii ugu horeeyay taas waxaan kaga badbaadnay in aniga iyo 10 anigu adeerkay dhalay inaan iskuul aadno halkii aan ka aadi lahayn waxyaabihii markaa dhalinyaradu ay danaynaysa ama inay dalka ka cararaan ama inay qoriga qaataan oo dadkii dagaalamay dhinacooda ka galaan taxigaas ilaa aan jaamacad ka baxo daba socday waxaan rajeynayaa artigay iyo adeeradayba inay arki lahaayeen runtii wayna arkeen waxtarkoodii meesha uu gaaray marka Soomaalida xamri joogtaa markay taxi maqlaan waxay dhahaan diaspora dadkii taxiilayaasha ay noo soo direen which is an insult runtii wax aysan u qalmin ah marka runtii labada shayba waxay ugu kaliftay in xooga xaadaydo iyo dareenkayga inuu isbedelo inta kadib waxaan rabaa inaan qof walba protocolkiisa oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraheeni adeer maxamed cabdi yuusuf xildhibaanada walaashay Faaduma ka garanaya iyo xildhibaanka kale hadlayay iyagana waa salaamaya dadka celebrity-ga ah dadka maxay ahayd orodyahanada ah walaalkay magan uu ku jiro wariyaasha runtii Soomaaliya wax weyn aad u qabateen markaan leenahay waxay tahay xanuunada ugu waaweyn Soomaaliya ay qabto waxa kamid ah sumcadda qof Soomaali ah markuu ka soo horbaxo qof ajnabi ah wuxuu isweydiinayo waxay tahay wadan burbursan laga qaxay dhibaataysan culeysay haystaan cudurro ka jiraan gaajo ka jirta la sawiranayaa marka waxaad ogaataan qof walba oo Soomaali ah oo meesha uu joogo shaqo fiican ka qabto Soomaaliya u hiiliyay wuxuuna gaarsiiyay meel ay ayadu isgaarsiin weyday dadka ay ku noolayeen isgaarsiin waayeen marka runtii waxaan idin leeyahay hambalyo inaad kaalinta qaadataan inaad inta soo qaxdaan haddana meelihii aad timaadeen inaad shaqo fiican ka qabataan runtii taasna waa idinkaga hambalyeynaya saddexaad waxay tahay Soomaali meel kasta ay joogto iyo guri kasta iyo meel kasta ay ku nooshahay dadka xilliyada ugu adkaa ee anaga aan ku soo kornay badbaadiyay ayaad hormuud u tihiin waxaad samoodaa waayadan dambe waagii hore 10 sano ugu horeysay kolley Abuukar al-Badri iyo ragii uu ka mid ka ahaa soo laabtay oo wadanka ku soo laabtay laakiin waxaad moodaa hadda waayadan dambe in haddana la bilaabayo in dib loo soo hijroodo oo ay soo noqdaan dadkii inay wadanka ka soo cararaan waxaan rajeynayaa saameyntiina iyo waxqabadkiina inaad halkan ka qaadaan oo dib wadanka ugu celisaan oo Soomaaliya markasta slogan la sameystaa markii dawladuhu isbedelaan hebel yimid waxbuu qabtay waa run qof kasta qof waxbuu ku darayaa laakiin waxa ugu wanaagsan qofka Soomaaliya uu ku dari karo tii hore waa ka hadlo sumcadeeda runtii qayb ka tihiin iyo sawirkeeda markii qofku uu arko Cabdi Nageeyo oo tartan ku guuleystay markuu arko Ramla Cali oo runtii feerihanad ah
oo stage qof kale ka badisay waxaan aaminsanahay dadkaas oo dhan qof aan u wada hadli jirnay intooda badan way rabaan inay Soomaaliya magaceeda ku matalaan laakiin duruufaha Soomaaliya ka jiraan u saamaxaynin iyo imkaaniyaadka u baahan yihiin inay Soomaaliya u tartamaan si Soomaaliya ka heleen marka taas ay ku kalifayso qofka inuu isxijiyo marka haddii Soomaaliya sidaan sheegay sumcadeeda aad kaalinta ku leedihiin kaalinta labaad waxa waa qofka Soomaaliya wuxuu ugu helin karaa 3 caruurta 4 caruurta oo dhalay inuu si fiican u tarbiyeeyo mujtamacan uu ku soo daayo caruur productive oo wadankoodana adopted countries koodana wax ku kordhin kara dalkoodana dib wax ugu soo celin kara taasna runtii waa kaalin kale oo looga baahan yahay markaan boorka arkay waa tiriyay يعني حتى بقولك بصدق مرة نقبلها هذا هالكان لقوا أبغى المرة وحنا إصلها وأنا قدرت قرب جوكت عن كحملنا هو يوم كعرضت الله بس منتها مركي إن هو يوم كيو بدون ويان هالكان لفته هذا وحنا ملانا يا وحلا صحة دونا ويا مستقبل كان إن شاء الله وضم بينتي وحنا مهد علنا يا تاجرو يا بلا قرحان يا تيم كان هوش وضع وهالك اسمه بلاغ أنا سومالي وكوكري واي صدق جارة شقة صوب بندقنا ونركال الدولة كغيب قاعدة وديري مركا dadka shaqooyinka fiican haystana ee wadamadan joogana ma ogola inay dalka ka shaqeeyaan dalka ku soo laabta ka shaqeeya horumarkiina ka shaqeeya Soomaaliya qurxoonatan oo idinku sii qurxoonaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad u mahadsantihiin يعني maxaa u mahad celinayaa horta ilaahay oo heerkan gaarsiiyay لبنا هويدا خالك خضر كاري خير جامعة اللفون كبحرين نادام المعلومات هيد محنا برتي برشدة علمك عدويدة مس آخرة لو ده وإنا مهم تهاي أو واحد يسكن ترتيب أو حوك علمك إلهي كل شيء واحد كل شيء السلام عليكم ورحمة الله adiga wax walba aad sameeysan marka celin karo oo laakiin waa mahadsantiin walaga hadda waxa isku dayay Soomaaliya aan ku hadlo marka waxa ay Soomaaliya waxay xarafo qaarka Soomaaliya ku garanayo bal qofka waxa weydiiyay waxaan ku yahay public prosecution maxaa lagu yiraahdaa Soomaaliya of he for you see of ishay karta of walba ishay weys of walba minister ko sheegay waxyaalaha uu sheegay marka minister ma aha heer ilaaliya marka waxaas aan maqlay ma arko waxaan isiri Soomaaliya waa fiican marka aad u maasantii وماسنتي ولا ليس أنا ماسنتي وأنا مركي إيشو بريشة عشرين معه حنا ما أقول يعني أنت وحياة إيجي لكن هذا أول فرحي مرة هذا الوافر حسن هاي أدين كان الصومالي ده أنتس Somali badan baa inta joogta waa maasan waa soo koobaya warka waa kiis Somali oo fiicay sawal kiis oo kala shaqeeyo waxaan ku isay Somali ma garanayo lixii toos 20 sano inta joogay Somali ma gawa isweyne marka hada waxa ay Somali baranay saaxiibo ma yeelanay marka hada saaxiibo u baahanay marka السلام عليكم. أفكار سومالي ساس مفعل. أفكار دلنا أو خدنا. ورتاني هاي كسائن. كلهم. كان كيان تري هالمر. يا وقتي. That's the problem. Adi so marti horta nus prize. Thank you so much. Ini guys, saya Omar punya. Somalia lalu dari Mogadishu. Marka ada. Ano sekarang sana itu mari. Balik lahan, lalu balik ya. Ninkan ay arkay. ولا ما بيا مركو عنكي خوف ميكو سنتي مكان أخبرهم على سومري لكن واحد ودب أهاي مركي
warshada bilaabay Cumar Munya handbags dhibka wixii ku heysay hooyaday mi aaminaynin hooyaday ma dareemaynin wixii suubinay dhib ahay maybe after shan waa sheegayna maamo waxaan waxa soo baxaa company waa kicina laakiin waxa la isii dhaqan kan Europe boorsa suubine ma jiro markaas so we are kuwada Omar waxa ay life cooking Carlo Bushard Irena Moors dadkii physical arkan naago Soomaali diriskeena aragtay waxa wiilka Umar dadka waa ka saaya magaca suubna markaas habartay waxa dheer okay hada waa ku aaminaa laakiin hada waa ku khosib karam markaas dhiba ah iyo wixii dareemo dadka oo dhalinyareen dhiba ku haysan really until now hadii ma maam alaaba suubna fashion mamas wax kale oo saas ka seenay ana wixii ka seenay bukaati waxaasi doctor markaas kaas le ma adduunka alxamdulillah hada habartay familigeedan waa fiican because markaas xooga la saaray important wixii ay maanta sheega rabaa waalidyaas number 1 baa wax keena taa waxda in qof ka seenay dadku wixii we only can grow if we create something new we need to innovate because our people I believe in our people gacmeen waa fiicina because create a daily paper has now Hussein Hulaf kulli magacyaal waa intaas uu ka saar I know we need to focus more on our people the handmade khabib fil wixii suubno qof lama suubi karo neex Maroccan neex Turki inta jooga laakiin ninkaan soo baxo invest in that thank you السلام عليكم محلها دي قرا النقطين حارو انا محلها هولنديس ku hadlo marka Hollandiiska ay fut ma arkan Soomaalidu ku hadlo waxa kaana cunug yar oo ma arkan Soomaali barad marka soo saaxiibkay sheegay Ingiriiska aadana xataa dadka waxa ahay boorsooyin ku xirxirnay Ingiriiska aaday oo waxa arkay ma arkan aqlig wax barasho aaday Hollandiiska ku hadlay sorry okay Hollandiiska u turjuana okay dadka boorsooyin ku xirnay ahay oo Ingiriiska aaday oo anigu boorsadii qaatay doonta raacay Ingiriiska tagay waxa islahay meesha nolol fiican taalo because Soomaali baa u socotaa meesha arkay taasna waxa abuurtay ay khalad in oo markino oo Nederland waxa jiro waxa la dhaho entice crisis dad badan jiro oo entice crisis leh oo of la jiray oo aan arko ahay entice crisis waxa dhigantaa ma ogid dhinaca maxal laha oo badan tahay ma Soomaaliya tahay ma Hollandiisa tahay mar of course madow ahay madownimada mar walba laakiin waxa meesha ku soo kortay mar walba la qabsanay xaga aaday waxa wax barasho media ina barto markii dambe waxa arkay inay waxay ugu cuslaatay waxa taksiila naqday meesha way ugu adkaatay waxa la warbeeshan beej waxay ahayd wax ma arkino si oo waxay ahayd oo ma arkino oo adiga khaos ah waa soo laabtay markaas waxa bilaabay marka okay beejot Soomaalidan xaq taksi wadaan the same thing xaga oo laga soo bi inta ka soo bi sidii marka ku dhaqaaqay insha Allah hadda ma arkino Soomaali badan hadda oo taksiga soo gashay jirto oo fiya uns oo maxal laha hadda shaqaysato my kandidaat zit daar achter ما شاء الله هذا هدي محلها يقرا نقطتين هندسه ku hadla my eerste stop ما أعرف om naar Somalia of naar Nederland of naar Engeland te gaan was eigenlijk mede dankzij alles maar ging daarheen ik denk weet je wat ik ga ook daarheen waarschijnlijk is beter leven daar maar tegendeel is bewezen dus het was helemaal niet beter leven. Alleen ik was gewend in Nederland, dus de reden was daar om de reden waarom ik daar naartoe ben gaan was eigenlijk om te gaan studeren, media te gaan studeren. Het is niet gelukt, dus ik ben taxichauffeur geworden daar. Uiteindelijk dacht ik, weet je wat, ik kan het ook zelf doen eigenlijk in Nederland. Maar ik heb daar helemaal geen zin meer om als taxichauffeur te gaan werken. Maar ik ga mensen opleiden, want mijn Nederlands is oké, mijn Somalisch is nog steeds goed. Dus ik kan daar heel veel mensen bij helpen en het is uiteindelijk goed gelukt. En ja, dus ik ben echt dankbaar ook om toch zoveel mensen geholpen te hebben. En nou, in ieder geval bedankt. En ik zou zeggen, sta je mannetje altijd. Om als het team.
maadaama aan ahay nin sport waxaan jeclaan lahaa in wax yar aan ka taabto sport horta way fiican tahay cayaaryahan fara badan in ay dunida dhan ka wada cayaaraan oo Soomaaliyeed balse haddana manoo fiicno sumcadna nooma aha in cayaaryahan fara badan ee dalal ajaanib ahayna wada cayaaraan oo dalkeena hooyana sumcad daro mar walba cayaartoodooda ku ah dunida waxaan jeclaan lahaa taas in ay dowladaha imaan doona iyo dowladeena iyo siyaasiyiinteena in ay fiiro gaar ah u yeeshaan waayo lama waayi karo cayaaryahan hal iyo laba oo si fiican loo tababaro si oo dhaqaale yar la geliyo ay sumcadda iyo sharafta Soomaaliyeedna ay u soo celiyaan waxaa maanta sharaf ii ah runtii waxaan dareemayaa special I never felt it like this marka waan ku mahadsantahay waxaan jeclahay intaasi kadib laba qodob muhiim ah in aan tilmaamo qodobka koowaad mahadcelin waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha ya salaam sababtu waxay tahay haddii ayaga dadaalkan iyo juhdigan iyo wanaagan aysan sameyn lahayn waxaa aaminsanahay maanta heerkan iyo magacan lagu abaalmarinayo caawa lama gaari lahayn ilaahay subxaana wa tacaala ha barkeeyo intaas kadib waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale macaamiisha sharafta leh oo kambaniga markuu bilowga ahaa taageeray in badan yani boqolaal aan dhihi karo yani Soomaaliyeed meelo kala duwan degan ilaahay fadligiisa marka koowaad markaan kambaniga bilaabeynay waxaan isdhehaynay qaaradda Yurub iyo Mareykan iyo Australia ku bilaaba laakiin waan awoodi waani waxaan garanay kaliya inaan Yurub ku soo koobno ilaahay fadligiisa sanad la soo dhaafayay Ingiriiska wuxuu ahaa wadanka ugu gadashada badan ee barfuunada ya salaam laakiin sanadkan number 2 waxaan noqday Holland lacag haystaan ما شاء الله تعالى intaas kadib waxaa u mahadcelinayaa CMD taajiro markuu isoo wacay oo dhahay abaalmarintaana idin xulnay inaad ku guuleysataan waxaan ku dhahay adiga mudan ina meesha lagu istaajiyo anaga ma ahan sababta dadaalkiisa iyo warbaahinta ummadda Soomaaliyeed waxa ka dhaca magaalada asigay bile wala qiimaha badan waa ayaga waa astaanta qaranka Soomaaliyeed ee gudbiya wax banaanka baxay waay ayaga noo gudbi ilaahina ajra ka siiyo ayaga way dadaalayaan intaas markaan dhinac u dhigo ustaadkeena weyn macalinkeena weyn walaalkayga weyn aan dhahaa Ustaad Cabdinuur ma sha Allah taala ilaahay ha barkeeyo aad ugu faraxsana maanta inuu halkan joogo qodob aad u weyn u tilmaamay oo muhiim ah wuxuu dhahay hooyooyinka Soomaaliyeed iyo gabdhaha qiimaha badan waa in moogtaa loo badiyaa u dhahay waxay tilmaamaysaa had Umar Munni uu sheegay dadka qiimaha badan halkan ka hadlayay kaalinta dumarka sababta dumarka waxaa bulshada waxaa soo saara kaliya waa dumar waa hooyo iyo wixii la mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barkeeyo waana oga asigana yani si shakhsiyan in kaalintiisa iyo soo saarkiisa iyo dadaalkiisa in hooyadiisa ay ka dambeysay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barkeeyo anigana waxaa idin leeyahay kaliya waxay tahay qof walba halkan jooga oo dumar ah buug waxaa jira 3 bil ka hor aan qornay wallahi hooyo macaan fi sabilillah bilaash hadiyo gift for us ayidin siinina mar qof walba meeshan ka baxayo insha Allah taala sidoo kale waxaan leeyahay waxay tahay aan ku khatima ani waxa aad u jeclay inaan dhiirigeliyo dadka qoraayaasha ah oo ugu weyn ustaad xildhibaan ma sha Allah taala buwaagu halkaas keenay waxa qiimo ah oo sharaf ah intiina halkan fadhino in aqoontaas aan ka faa'iideysano ayagana waxaan leeyahay waxay tahay qof walba oo gata buugaas oo ragga iyo dumar kulli ahbo waxa la socdo hal buug bilaash ah oo buuga hooy macaan ah إن شاء الله تعالى بلاش سلو دير جليو ولكن حلوانك ما شاء الله تعالى إذن كان آد أو ما سنتهين قبلها قيمها بدن الصومالي وهذا آد مدخن أو دير جلنا لقد الصومالية أنت سعونا يكسر بلاو في أمريكا أستراليا ميرو بجي صومالية لقد الصومالية وكالنت أقوين برشدين بدبادين يسوون
وكالنتا أوين ومجا أوين ودمقشة أوين خفك الصومالي بدبادينايو oo jiritaankiis iyo wanaagiis iyo wax walba muujinayo ma sha Allah ta'ala aan ku dadaalno CMD in Soomaali tahay yani waxa la arkaa badan aba ogtiinbo awaal marina badan dhaco yani international heer oo khameetida laga yaabaa in naqad waxidna uu dhaca kulli sax waa laanda lagu dhaca laakiin dad Soomaali ah inay gartaan bulshadooda Soomaalida inay awaal mariyaan taasi waa dhiirasho aad u weyn hada CMD yani isku xilqaanka ay sameysay ha u maleynina inay ka imaado cirki inay ka imaado lacagtii qarashaadkii ma qof wax sameeynaayo Van Falk waa one of the best hotel oo Holland kaliya ku faanta way sax yani ma fududo in maxal dhii jiray kulan lagu qabto sax yani waligeed ma maqashay Van Falk hotel oo Holland Soomaali xafladeeda lagu qabtay ana waligeed ma maqlin bo يعني واتل يعني إن ماشى لو قبته والمرين وين واي ما شاء الله تعالى كالنتا يعني تلمامي اسمه سواي خرج وباهنتا دلالة وباهنتاي أستاذ تاجيرو يستاذ بلا إذا ما تيم كلا شقيناي يجيب لها قيمها بدن ما شاء الله لوبين وحق بنان جو كل كشقيناي إلها بركة أي الويد دالن حالة يرجليو إن السي وضعن سنده صوص على كل إن يرجليان وح أوجهاي وح ودن كان جوجو dad badan oo Soomaali dhalinyaro ah raba kaliya in la jihiyo hadii maqaan Soomaalnimo in loo soo anaga Soomaali ah waxaan garan dadaalka aasamays inay fiican tahay muxuu qofku isleeyahay waaw ani bulshada ka dhex muuqda sax badan dhalinyarta oo jiilka adaafiga generationada kale oo da'yarta ah yani waxay ka cabsadaan yani bulshada in aysan dhiirigelin ka helin meesh qof ganacsiga markuu bilaabay ama waxyaabo fiican uu sameeyo bani aadam xad qaajiyo dareen waay meel aan dareenka ka helin ma joogaysa gabadha si walba nin ay u jeceshahay hadaysan dareen qadarin iyo qiimo meel ay ku helin ma joogay may lacagta dareen lagu gadan karaa may qofka dhalinyarta ah waxa kaliya uu qiimeynaa maxaa waa dareenkaas de meesha ka baxdo waa dib yani ilmaha dhalinyarta waxay kaliya u baahan yihiin waa dareenkaas inaan gelino wax fiican sameeyeen waa dadaasheen iyo wixii la mid ah taana waxay keenay inay guulo fiican gaaraan ilaahay subhanahu wa ta'ala barkay ma saliin salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan marwooyinka iyo mudanayaasha ka soo qayb galay halabuurkan qiimaha leh oo ay CMD noo sameysay oo ugu weeyahay adeer waxaan idin leeyahay salaam alaykum waxaan marka hore mahad u celinayaa CMD oo award sameysay oo maaragtay halabuur ma cusba hilda mar hore soo sameysay laakiin ayaga hadda meesha ka sii waday waa wax maaragtay aad loogu farxo bila wuxuu dhahay maaragtay Soomaalida Holland waxa waaye waxa la dhahaa maaragtay dad aan ka muuqan bulshada oo kale laakiin annaga Soomaali haddaan nahay reer Holland individual haddaad ama shirarka tagtid ama aad meelaha shaqooyinka tagtid waxaan arkaysaa dad badan oo meel dheer gaaray marka barnaamijkaana wuxuu aad muhiim ugu yahay in dadkaas oo dhan maaragtay lagu soo xiro Soomaalida maadaama aan 40 kun waanahay laakiin aan ku kala firiirsanahay wadanka dacaladiisa oo dhan oo aan laga warqabin waxyaabaha jira ama faa'iidooyinka ama dhibaatooyinka ay haysta familada Soomaalida ee ku nool dalka marka way jirtaa maaragtay awoodo badan waxyaabo badan maaragtay fursado badan oo dadka Soomaalida haystaan laakiin haddii sidaan oo kale loo organize gareeyo waa wax qurux badan oo aan maaragtay la kala faa'iideysan karo oo la isku baran karo midda kalena waxa idinkaga mahad celinayaa inaad igu sharafteen prize ay siiseen oo aad maaragtay igu sharafteen magaca iftin waxa waaye organization aan 19 sano ka hor aan organize gareynay dadkii hore ayaan ka mid nahay sida Faaduma sheegtay waxa hadda loo baahan ilaa haddana waa u jiraa oo wuxuu leeyahay xarun iyo shaqaale ka shaqeeya iyo voluntary badan aasaasiyaashii waxaa igala jooga 2 qofood Jaabo Sheekh Xasan iyo Nimco Isaaq Macalin oo ah advisor-ka ururka oo wax badan maaragtay ka soo qabatay caawinaadda waalidiintaas markaan aasaasayna waxaa jira baahiyo badan oo loo qabay bulshada Soomaaliyeed waxay ahayd waqtigii dad badan ka guureen Holland oo u guureen Ingiriiska muddo yar kadibna ay soo galeeti badan soo galeen dad badan oo aniga kamid ah waxaan ka shaqeynay social worker oo waxaan aragnay dhibaatooyin badan oo faamilada Soomaalida ka haystay dalka gudihiisa
siiba maaragtay koritaanka caruurta iyo barbaarinta caruurta oo hay-ado badan ay ku haysteen ama ay ku qabsadeen labada dhaqan kala duwanaanta labada dhaqan ee lagu korinayo caruurta. marka taas ayaan waxaan u sameynay inaan maaragtay u sameyno kahortag barnaamijyo badan oo kahortag ah oo ilaa haddana socda amisadaa maahan ee xataa magaalooyinkan oo dhan aan maaragtay tababaro iyo aan uga soo sameyno. hadda maanta waxaan ka faa'iideysanaa dhalinyaro badan ayaa joogta. qof walba magaaladaada fiiri maaragtay caruurta kusoo koraysa, especially caruurta hooyada keliya korisa ama caruurta waalidka soo galeetiga oo wadanka ku cusub. waxaa laga yaabaa inaad wax badan oo kahortag aad u sameysaan ilmahaas ama aad role model u noqotaan. homework keliya in laga caawiyo maahan, waxay u baahan yihiin qof ay u arkaan, qof isaga ay iska dhex arki karaan uu dhihi karo mustaqbalkayga sidaan uu noqon karaa haddaan dadaalo. marka Faadimo waxay tiri siyaasadda ha lagu daro. siyaasadda waa run, haddii siyaasadda ay dhisan tahay barnaamij ayaa naloo waxaan u baahannahay ayaan dalban karnaa. laakiin taasna ma ah keliya, waa inaa qof walba uu si mutadawac ah, maadaama qurbo joogno, faamiliyo badan oo maaragtay dhibaataysan ay joogaan, maalin walba aan kala shaqeyno. way fiicnaan lahayd dhalinyarada waddankaa ku kore oo maaragtay isku marxalad soo maray iyagaa nooga fiican oo isu arki karaan maaragtay, ama uu ka dhagaysan karaa waxyaabo badan iyo talooyin badan. intaasaan kusoo gabagabeynaa. mahadsantiin. waa mahadsan tahay. warka hala soo gaabiyana waa la yiri, marka insha Allah waxaan isku dayi doonaa bal inaan soo koobo. marka hore waxaan jecelahay inaan idin salaamo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee quruxda badan ee kulankan isugu yimid. anigu waa aaminsanahay maaha inaan afka kaliya ka leeyahay, laakiin dadkayga Soomaalidu inay yihiin dad qurux badan aadaan u aaminsanahay. marka waxaan idin leeyahay galab wanaagsan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب وناكسن قرحة سيد عيسى وحنا ملاين إني مدن تعيد لفتي جد ولا حس صومالي ساسال الهجرة. أنت كسكو وحنجعلها السيجارة إن نقوم هاد عليو هي أدى كنتي سي أم دي سوق بنقابل سي أبال مرينتن إن لو أبال مريي دات صوماليات وكل الدول كلمة مجتمع قيبي سكل الدول لو نصو حلي inay mujtamacooda ay wax u qabteen ama iyaga laftigooda ay sameeyeen wax lagu tilmaami karo inay qayb ka tahay horumarka bulshada. marka runtii inaad arintaa garateen adika laftigiina waxaad ku mudan tihiin ammaan iyo in leedinku mahad celiyo. waxaana rajaynaa hawshaas inay noqoto hawl lagu xuso oo gaar u ah hay-addaas, maadaama runtii iyadoo ay bilowday inay sii wadi doonto lanana shaqeeya haddii la hiraa. sidoo kale waxaan jecelahay inaan ومهد علي محمد عبد الله عسكري قدوميها جالية أما دلد جودة الصومالية ودن كهولن إفسن محمد هادي هذا دوما سنتاي إن كستو أنا وأنا لبت ترم جوجي ماشى أفر سنة وحن أدو فرح سنة هاي إن أنا ويبدلي شخص رنتي أدي هذا أنا وكل سنة هاي وأرجع ماله وحيابها جار كإن لو تلمامو مدرنا إتهاي نجعل إنه دتك هذه جالس قوة ودرقادله qofkii Soomaali ayaan u shaqeynayaa Iiraan waxa looga baahan yahay runtii inuu leeyahay dabeecadaas oo kale. marka Maxamed aad iyo aad u mahadsan. gabadhii waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo ninka dhalinyarada ah oo runtii gar qaado jacayliya. heestaas yaa qaaday Cabdimaalig aduu ha sheegaya ya heestaas yaa qaadi jiray Axmed Cali Cigaal. aad u mahadsantahay. fanka Soomaalidana aad u jecelahay inaan dhageysto. sidoo kale waxaan jecelahay inaan hilmaamin wiilkan dhalinyarada ah oo runtii wax badan qabtay. adiga waa adiga adeeraya gadaal ma af Soomaaliga aad ku hadashay aad u fiicnaa, meeshaada ka wad waa saxsan tahay, hana ka xishoonin, sidaas laga rabaa. marka rabbil caalamiin dhammaan dadka sharafta badan ee ka soo qayb galay barnaamijka ugu horeyn aad iyo aad aan idin salaamay. aniga magacaygu waa Xasan Cabdi la sheegay, waxaan ka imid Jarmalka. sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa CMD oo ugu marti qaaday barnaamijkan sharafta leh oo qiimaha badan. si gaar ah waxaan Jarmal ahaan waxaan qayb ka nahay barnaamijkaas inaan ka soo qayb galnana waa ku faraxsanahay. si gaar ah waxaan ugu amaanaynaa iyagana aan u mahad celinaynaa
dadka haldoorka ah ee sharafta badan ee lasoo xushay abaalmarinta hoggaanka bulshada ay u yihiin iyo waxa ay u qabteen loo soo xushay ee lagu marti qaaday galabtay programkan ee lagu siiyo abaalmarinta iyadoo ay ujeedadu tahay in lagu dhiirigeliyo dadaalka ay sameeyeen ee bulshadooda iyo ummadooda ay u qabteen annaguna waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin si gaara mar kale jarmal ahaan waa ku faraxsanahay inaan ku jirno dadka la abaalmariyay inkastoo uu maqan yahay saaxiibkii wasiirka Ilyas marka dhammaantiin waa idin salaamayaa soo dhawaada mar kale in ku dareemaa assalaamu calaykum halaf leeq inuu yahay saa aragtay ku xiran tahay anigu marka waxaan jiraa dhinaca inaan u arko halaf fool inay tahay bakeeriga inta maran ima muuqatay waxa ii muuqatay inta buuxda Soomaaliya dhinacii fiicnayd u socotaa guud ahaan ayaa muddo dambeeyay oo dhan hadda fiiris mar meesha soo mareysay wax yaran taabana daqiiqadii 2 daqiiqo ku waag waxa laga soo bilaabay 90kii markii la gaaray colaada dhacday 10 sano waa la kala maqnaa 2000 la isu yimid waxa la qabtay shirkii u horeeyay carta waxa lagu soo dhisay dawladda u horeysay Cabdi Qaasim calanka Soomaaliya meel kasta la geeyay ma uusan oolin dawladda ku xigtay talaabo fiican ay qaaday waxa la keenay Cabdullaahi Yuusuf madaxtooyada waxa la keenay dawladda madaxweyne Meeder Fadin waxa ku soo xigay ninka la yiraahdo Sheekh Shariif asagana magaaladii in la xoreeyo oo dadkii la iska sikiyo ayaa la bilaabay waqtiga madaxweynaha ka jirtay Xasan Sheekhi koowaad ayaa markaas yimid waxa laga baxay hadii la ku roon yahay ku meel gaarnimadii markii uu horeysay Xasan Sheekhi yimid waxa yimid ninka la yiraahdo farmaajo ku xigay in aan la inta karaanka soo sameeyay deemankii baa la bixiyay ciidankii la dhisay wadankii la hagaajiyay Xasan Sheekhi labadaas oo laabtay hal qof iyo hal cod ayaa laga filaa asaga inuu sameeyo dhinaca positive marka dhinac wanaagsan u soconaa kulligeen dhinaca wanaagsan loo socdo la fiirinaa marka qaarto waa maasantiin waxaan si gooni u amaanayaa Cali Waare oo gudoomiye aniga horeeyay ahaa xilka noo dhiibay ayadoo ibsan dayn lagu leeyahay farqaha la haysto xaaladda karanta ay yimid ayadoo kiliina oo deel lagu lahayn oo positive tahay qasnadeeda ayuu ka tagay waqtiga hadda lagu jirana waa yar yahay qof saas oo kale ku sameeya amaanta waan ku faraxsanahay runtii in dadka maanta la marti qaaday uu jiro magac anaga noo tahay ibsan magac u tahay dhamaantiin Soomaaliya ha noolaato waa salaamantiin dhamaantiin macallin waxaan balyo maanta Holland marka la soo xasuusto Yurub oo dhan Soomaalida guulaha ay ka gaartaa la soo xasuusanaya waa koow mid labaad waan hambal idin leeyahay waxa maalmahan hawada ku jirtay ninkii cunsuriyiinta ugu weynaa ayaa xisbigiisa guuleystay asaga naftirkiisa waxa tusteen wax kastuu ku ololeyn jiray oo uu gadi jiray in ay beentiisa tahay marka taas naftirkeedii hambalyo intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo CMD oo dabcan shaqo culus qabatay soo keentay meeshan aniga hadda markaan hoolkan soo galay wax yar ka horan airport ka soo degay Sweden aan ka imaaday laakiin Sweden ka horna bil ka horan dalkii ka imaado reer Muqdisho aan ahay meeshan ka shaqeeyaa ku noolahay Euro 2008 yaa imaaday laakiin waa i qaadan weysay waa ka laabtay ilmaha ay degan 16 sanadood ku dhawaad Sweden joogay baasaboorkooda xataa ma apply garan wali deganaanshiyan ku joogaa intaas waxaan idinku sheegayaa kaliya meesha haddaad iska weyso naftirkeedii in depression intuu kugu dhaco dhex joogtid maahan waa laga noqon karaa waa ka noqday waa shaqaystaa alxamdulillah maalin baagmundo ma noqon sida aan Yurub uga laabtay intaas kadib waxaan rabaa meeshan hadda waxaan dhahay Holland hadii la xasuusto waxa la xasuustaa ayaan hadda Holland marka la xasuusto ya salaam iyo xidig iyo am xidig Abu Bakar iyo Umar waa la xasuustaa Soomaa waa ka badateen hadda orodyahanada adduunka ugu orodka dheer Megan oo hadda 10 sano la soo dhaafay ka badan asaga suuqa haystay oo aan cidna soo bareejayn iyo dad la mid ah oo fiican oo badan siyaasaddiina maanta matalayaal meeshan idin fadhiya Faadumo oo ayadoo urur bulsho markaas bulshada ugu adeegaysay aniga 16 sano ka hor meeshan igu soo dhaweysay oo maanta siyaasiyada idin hor fadhida waa wax weyn dhinaca wadaniyada dadka aad ku tirada yar oo qalbigooda dhinaca wadaniyada nadiifka yahay ayuu kamid yahay Ra'iisul Wasaare Maxamed Cabdi Yuusuf marka waxa haysataan hanti hadduu iskala kiin joogo oo ayadnan u tagin oo la sheekaysan oo waxba ka faa'iideysan oo mararka qaar inta meesha soo fariisisaan la casariyeen naftirkeediina waa
xoogaa waa nasiib darray noqonaysaa. Intaas kadib cabdicasiis xildhibaan saaxiibkay oo ma ka baxay qolka buugaagta tirada badnaa ee uu sheegay inuu qoray 24 ka mid ahaa gurigayga taalla aniga oo kuwa carruurta dabcan qaarna Swedish English ay ku qoran yihiin laakiin waa buug carruureed way jiraan ka faa'iideysto ninkaas waa energy badan oo haya noo soo dir haddii la wadin soo diri doonaayo ha laga faa'iideysto asoo joogay inaan sheegay ahayd waxaa meeshaan lagu siiyey bilad bangigii IBS Bank waxaan rabaa qodobo yaryar inaan dul istaago intaan arlaadi ku tegin. IBS Bank markii la furay dadkii macaamilka u noqdaan ka mid ahaa waxaan wataa oo jeebka hadda iigu jira kaar la yiraahdo Dalmar Elite Mastercard. kaarkaas wuxuu ii sahlay dadka Facebook igala socdo garoomada aan maro intoodii badan markaan u baahdo inaan xoogaan nasto oo launch oo VIP ga inaan galo. Cabdicasiis soo daahday warka waxaan dhihi lahaa waa dhahay kaliya waxaan dadkan ka codsaday buugaagtii ay ii soo dirtay waa ku mahadsan tahay 24 ka ahaa ayagana inaa u soo dirtid hadday kaa codsadaan marka intaasaan kaa sheegay kuma xaman. shukran siyaasadda maalmahan qofka haddii la yiraahdo magacaagaa la sheegay marka waxaan leeyahay Cabdirasaaq oo IBS Bank oo magaciisa meesha laga xusay tiimkiisa way mahadsan yihiin waxay dal ku soo kordhiyeen wax qofkii u baahan uu uga faa'iideysan karo siyaabo badan. reer Holland ayaana ku mahadsan oo shakhsiga noocaas oo hawshaas qabtay soo saaray. asxaab badan oo waxgalaha meesha fadhiyo saaxiibkay Cabdinuur Maxamed Axmed hadaa waxaa la yiri agaasimihii warfaafinta markii ugu dambeysay cid bedeshay ma ogi agaasimaha agaasimaha madaxtooyada saahay ku xigeenkaba 2 in 1 isku ahaa marka asaga naftirkiisii wuxuu sheegay in taxi wax laga soo baray xilli waxaan soo marnay dalkii Sweden aniga dadan kamid ahaa u ololeynay in Soomaalida inay tagaasida bartaan loo fasaxo oo xataa intaas loo ogolay maantana 10 taxi haday ka hor yimaadaan 5 ama 6 wiil Soomaaliyeed ah wada marka baagamuundada inuu lagu cayn jiray xataa Europe tagaasida meeshii ka saarayaan horta taxiga yaan dadka lagu cayn waxaan aqaanaa qof Soomaali markuu joogay darajo fiican hayay shahaado master wato oo Sweden taxi lagu ah qofkaas hadduu dib u laabto oo xil loo dhiibo taxilihi yaa macnahan loo soo diray in la dhaho naftirkeedina si dareen noqonaysa dhakhtar taxi wada la helaya marka intaba waa wax aan rabo inaan baraarujiyo arinta arlaadi aan waa ku mahadsantihiin inaad xusteen aniga arlaadi kama shaqeeyo laakiin asaasiyaashadan kamid ah arlaadi dadka si u fahmaan Soomaaliya waxa macnaha Soomaaliya ku hadalnaa dabcan marka isku afaan ahaan dhahnaa markii si loo fiiriyo xoogaa afufku waa labo ama ka badan ana laga yaabaa 5 lahjadood inaan ku hadli karo hadda aanoo inta taagan aniga nin saaxiibkay oo ambassadorka loo magacaabay saaxiib aan ahayn isku xaafad aan ahayn yaraanteena aan naqaanay hadda business kuma baran muddo dhexe oo uu senator ahaa waxaan ka sheekaysanay dadka waxaan dareennay inay kala harayaan wacyiga bulshada inuu kala harayo wixii inta la siyaasadeeyay isku afaan nahaydu ay ka muhiimsan tahay bulshada inay isla socoto marka waxaan dhahnay horta si loo fahmo bulshada waxay u baahan tahay dadkan afka maay ku hadla naftirkooda wax dalka ka dhacay iyo wax baarlamaan ka socda iyo wax madaxtooyada ka socda inay fahmaan ma u baahan yihiin ha hadaynan anaga sameyn yaa sameyn doona marka qofna taasaa keentay horta inaan inta ku fekerno radio inaan furno nala ballaarto TV ku darno in saas lagu furo warbaahinta la dhaho arlaadi waxaa laga yaabaa markii arlaadi la furayay dad badan oo meesha fadhiyo wariyaal ah ayaan rabaa dib inaan usoo celiyo Horn Afrique iyo idaacadii Banaadir ayaan u maleynayaa 2000 Soomaali ka aasaasmay markaas dadka soo wacay Horn Afrique barnaamijkeedii dood wadaag oo ay wadi jireen Allah u naxariistay Awil Daahir Salaad iyo ambassador Dinari dadka magacyadooda ay qarin jireen cabsida iyo heerka wacyiga uu gaarsiisnaa
qofka xaafaddu ka soo wacay iyo magaciisuu qarin jiray waan loo ogolaa xataa waxaa ogolaa dadka dooda u furay macnaha idaacadda arlaadi marxaladii meeshaas Horn Africa ay soo maraysay hadda maraysaa wacyiga dadka waa saas siyaasiyiinta xataa markii idaacadda arlaadi la furay inta soo dhaweysay Soomaalida maxaa tiri ku hadashay u badnaan Soomaalida ma ay ku hadashay waxay u arkeen mushkilad ku soo korortay gaar ahaan siyaasiyiinta masfarku u ahaa ayaa maanta barakacyaal u naqaanaa kaamam nooga buuxa dadka ugu liito aan u aragnaa laakiin dhaqaalihii dalka tiirkii ka soo jabay oo aan kaam gelinay waa dadkaas cid wax u sheegtaa male waxaa laga yaabaa cunugoodii buushka ku dhex koray inta laga wato beriyaa soo codadaysan oo isku soo xiray bam intuu ku yimaado inuu isku kaa qanxiyo sababtoo idaacadda kale ma dhagaysto hadduu dhageystana inuusan fahmin aa laga yaabaa waa soo koobaya kowdii aan cudur daasiraale marka baahida arlaadi loo qabay markay shaqaysay muddo hadda waxaad ka arki kartaan baarlamaanka xarunta baarlamaanka miidiyaha jooga waatan ugu muuqata wax kale ma aha xildhibaanadii xataa waxay dareemeen fariintooda inay dhinac walba gaartay inay u baahan yihiin markaasaa tan maadaama tu kaloo la tartanto afmaal ku hadasho aysan jirin dadkii oo dhan waxoodii ay soo deynaysaa iyadoo laga yaabo xildhibaanada markii warbaahinta kale ay la hadlaayaan dhowr boqol oo warbaahinood ay kala doordoortaan inay helaan marka horta meeshaasay ka timid ujeedaduna waa dadka wacyi ahaan in la iska daba keeno bahashu power sharing ma aha 4.5 ma aha dagaal ma aha wax kale ma aha Horn Africa dadku meel waxay ka soo qaaday magaalada Muqdisho gaar ahaan meel waxay ka soo qaaday qofkii warbaahinta ku jiray kaliya uu garan karo ra'iisul wasaaraha inuu raac doona u maleynaa xildhibaanada diidi jiray inay hadlaan ayagoo ka baqay dagaal oogiyaal ama ku jawaabaan aragtidaada siyaasadeed inaad bandhigtid aad u adkeed markuu asaga xilka hayay hadda meeshii maraysa deegaanada dadka markana dhageysta ay ku badan yihiin nimankii odayaasha deegaanada haystaan dhalinyarada ugu badan ay ka askareeyaan mushkilada ugu badan ay ku hayaan haddaan dadkaas lala hadlin af ay comfortable ku yihiin ay dhageysan karaan lagula hadlin fariin ay fahmi karaan la gaarsiin qof ay weji garan karaan uusan la hadlin oo siyaasigoodii uusan macnaha dadkii la hadlin way kala haraan dadka marka horta fikradda arlaadi meeshii ka timid marka arlaadi aan ka gudbo waxaan rabaa biladan arlaadi la siiyey horta waxaa iskale warbaahinta Soomaaliyeed oo dhan waa ku mahadsantihiin laakiin waxaan u qaadayaa warbaahinta Soomaaliyeed oo dhan sababtoo ah dalka maanta meeshuu ka nool yahay waa warbaahinta waa sababta qof kastoo siyaasi ah ee xilka ugu sarreeya qabta iyo dadka la shaqeeya wasiirada taliyayaasha kulli ay warbaahinta u dhibsadaan warbaahinta shaqadeedu waa dhaliil warbaahinta ma amaan dalkan aad joogtaan warbaahintu ma siyaasiyiinta amaantaa warbaahinta siyaasiga amaanto hoosheeday gabtayba annagana warbaahintii qof dhaliisha inteenan meesha fadhidaa waxaa laga yaabaa inaan la dagaalno dhahno maxaa ka rabtaa maxaa u sheegaysaa qofna qof wax kama sheega ogo xilkaa wax laga sheegaa xilkuu gudan waayey hooshii sida la rabay u qaban waayey haddii aa qof maanta dhahdid xataa kuweena inta jooga oo dalkan warbaahintiisa ay xorta tahay ee ku qasbay ninkii xisbigiisa guuleystay inuu ra'iisul wasaare waayo waxay ku faraxsiin teeni xagga joogtay in mararka qaar aysan hadlin saxna ma aha marka waxaa la rabaa fariinteeda ugu dambaysa ay tahay waa u dhihi doonaa waa beri sharaa lagu haya aada u mahadsantahay waa soo gaabinaya marka ugu dambeyn waxaan leeyahay culayska warbaahinta dalka ee ku xoroobayso idinkaa idinka yimaado hadla codkiina dhiibta xorriyad la-aan dal ma hormaro xorriyad la-aan dal ma hormaro intaas kadib halkii daqiiqan galaya cabdicasiis reerabtiyaashiisuu rabaa in meesha lagu matalo marka lang afmayka hadalo sinki jare galantu suraab maasha allah eedaan mahadsantiin lanki geeka airbortka oo qaadi bareed fadhiya nuurudiin
macalin mukhtaar nin aan aada u jeclaa lanko aan eedin jeelay by the way aan aada u jeclaa aan dhahay maxamed xudiin asaga iyo saaxiibkay maxamed xudiin xidigta baanoraama isla qori jireen odayaasha kamid ah al-shabaab aa naga dishay adduun iyo aakhiraba asagana jannada allaha geeya ayagana allaha ku ciqaabo intaas ku dib way faday inaan meelunku era c m d eedan ka mahadsantiin balladan sharafta leh qiimaha leh eedan faylaysan siidan warbaahinta arlaadi ama warteelka arlaadi balladan way baan guddoomiyey guud ahaan warteelka dalka gaar ahaanaha muqdisho ka sugan ku shaqeeyaan ha ka dadaalin dhab kastana han ka dul qaadeen fursaddan aanoo ku faa'iidaysto markan wuxuu codsadaysa inaan meelun fadhiida ani culeys saartan dadka hoggaanka dalka siyaasiyiinta ah xuriyatul qowl ani jara dalka ani lan adeega ani la ogolaada ani lis dhaliila warbaahintii dhaliiljeysatoona laka abaalmariya tii hadda maamulka iyo siyaasiyiinta ku baal dhawaato qofkii an fadaan nool ku sheegto qofkii fadaas nool ku sheegtana la era shaqada meelama siin ku jarta iyadan mahadsantiin reer holanba salaahan baliya inkastoo aan ku talagelin soo diyaar garoobin aan isdhahay marti sharafeedaas ka noqonaysaa marka laakiin farxad ay tahay inaan ujeedaan quruxda badan maanta horta soo istaago si gaarana waxaan rabaa munaasabadan inaan ka mahadceliyo oo ah munaasabad runtii weyn qiimo weyna wadata in qof la dhiirigeliyo wax ka muhiimsan ma jirto waa waxa ugu fiican oo qofka bani aadanka sar u qaadayso inuu waxa uu qabtay haddii loo sheego inay yihiin wax fiican uu haddana markaa ku fakerayo inuu wax kasii fiican qabto marka runtii waa ku mahadcelinayaa aadaan ugu mahadcelinaa weliba xarunta mediaha iyo xarunta warbaahinta iyo wadahadalka runtii aadaan ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa keliya inaan dhaho runtii waa ku faraxsanaa inaan imaado maanta aan dhiirigeliyaasha kamid noqdo in laysu istaajiyo halkaan waa horta inay soo istaagaan si kalaan u arka ayadana farxad kale waxaan rabaa marka inaan dardaarayana aan siiyo xarunta hal iyo labaan kusoo koobayaa runtii bulsho kasta oo horumartaa waa sida uu cabdilxildhibaan uu sheegay waxa ay ugu horumartaa waa hadba sida iyadu maarata meeshay ka timid ay u taqaan qof markuu meeshuu ka yimid yaqaano ayuu garan karaa meeshu uu socdo intay u jirto markaasuu tegi karaa ay u sahlan tahay marka bulshooyin fara badan oo annagana lamid ahoo ayaga laftirkooda ku dhacay maaragtay dhibaato ama ku qasbanaada meeshay degnaay inay ka tagaan waxyaabaha ay isticmaaleen oo ay maaragtay meel ku gaareen kamid tahay in dhaqankii afka ay maaragtay ku dhegnaadaan mediahana runtii door weyn oo ka qaataa marka waxaan jeclaan lahaa aqyaar fara badan hadda ujeedaa wejiyadooda meesha joogto oo aniga laftirkeyga mediaha ka imiday mediaha saameyn weyn ku lahaa door weyn ku lahaa haddana hormuudka ah halkan xarunta in aan dhiirigelino dadka yararka ah oo halkan ku kora ama ku dhashay weliba si gaara aan maarata xoog u saarno inaan xoog isugu geyno in ay saameyn yeeshaan ayagana si hadhow maaragtay mediaha in naloo isticmaalo xagga negativeka ee u noodaan kuwa naga difaaco waana mahadsantihiin boqolkiiba boqolaad mahadcelinaa dadka la siinaya qaataan magan waa halihii soomaaliyeed muddana usoo halgamay qof walba oo soomaali ah hadduu joogo magaciisa waddanka iyo kii dibadda joogayba waa mid ka wada dhexeeya inkastoo uu waddankan lagu ciyaaray lagu qaaday laakiin marka qofka la isweydiiyo waa kee hebel la yidhaahdo magaca noo raacaya soomaaliya ayuu ahaa isna aad ay ugu haweynaa aad ay u mahadsan tahay martida dadka abaalmarinta la siinaya hadal yaroo kooban ayaan siin doonaa laakiin marka hore abaalmarinta ayaan bixinaynaa kadibna hadalka ayaa noo raaci doona guddoomiye rajaaliyadda cali cabdi waare ayaan markana u yeerayaa horeyna uu u sheegay guddoomiyaha hadda jooga wixii uu qabtay cali cabdi waare laguma iloobin weli waa lagu xusuustaa guddoomiyaha hore nooga sheekeeyey marka waxaan isiri cali cabdi waare inaan la iloobin dadka dib u xusuusiya cali aad ayaad umahadsan tahay aasaasaha iftin founder ayaan markana u yeeraynaa waa gabar wax weyn ka qabatay shukri xasan saciid
shukri xasan saciid soo dhawow lafdhabarka ummadda waa hooyada iyo dhallaanka wax badan ayay ka qabatay hooyada iyo dhallaanka horumarkooda shukri in badan oo ummadda ka tirsan markay toosaan bilowga hore inta kale way toosaysaa hooyada iyo caruurta markay meel horumarsan gaaraan waxna loo qabto bulshada qaybta dambe dhib badan lama kulmayso way soconayaan marka shukri wax weyn ayay ka qabatay shirkadaha Soomaaliyeed ee wax soo saarka sameeyay waxa kamid ah shirkadda Ya Salaam shirkadda Ya Salaam ayaa kamid ah waa shirkad barfunada samaysa oo brand ama magac gaar ah soo saaratay sumcadna u ah shacabka Soomaaliyeed iyo qof kasta oo Soomaali meel kasta uu joogo Umar Maxamuud ayaa halkan ka jooga iyo sidoo kale Maxamed Cirra ayaan ku soo dhaweynayaa si ay abaalmarinta shirkadda Ya Salaam Umar soo dhawow si aad ugu qaado shirkadda abaalmarinta hadiidaha maanta la bixinayana waa shirkaddii damaanad qaaday in la siiyo barnaamijkaana sidoo kale sponsorshipkeeda samaysay and markan waxaan u yeerayaa mid kale shirkadihii ayaan ku jirnaa isna sidoo kale wax weyn qabtay oo sida uu sheegay gudoomiyaha CMD ba branki rootiga uu sameeyay dukaamada wadanka oo dhan laga heli karo Kaadir Abokar ayaan ku soo dhaweynayaa oo shirkadiisa Kaadir Food kaadiraad ayuu maasan yahay sidoo kale Soomaalida farsamooyin badan ayay lahayd waxyaabo badan ayay soo saari jirtay laakiin haddaan la sii horumarinin oo caalamka la tusin annaga un bay nagu ekaanayaan kabaan samayn jirnay boorsooyin ayaan samayn jirnay waxyaabo badan markan waxaan u yeerayaa Umar Muuye shirkad samaysa boorsooyinka waxaan u malaynayaa inay tahay dhaqankeeni laakiin isaga uu casri ka dhigay Umar Muuye soo dhawow qof walba way fahmi kartaa boorsooyin anaga noo gaar ah markaan adduunka ka gadnay dadaalkii intuu u maray Umar soo dhawow markan waxaan u yeerayaa Safiya Roble Fenderson waa gabar qareen ah wadankanna meel sare ka gaartay una taagan bulshadeeda mar walba inay wax u qabato ummad haddaysan qareeno lahayn wax difaacaya ma laha marka Safiya soo dhawow bulshadaada way ku aqoonsadeen inaad wax ku soo kordhisay in badanna ay kugu tashanayaan halkaad joogto ay kor ku soo eegayaan saad wax ugu qaban lahayd
safiya waa gabar garyaqaan ah oo lawyer ah. safiya kaligeed ma aha, garyaqaan kale aan idiin wadaa, nayrus macallin oo iyadana ah gabar aad u da'yar oo meel fiican gaartay. nayrus marka dhanka sharciyada dhibaato naga qabsato ilaahay naga haye, gabdhihii noo joogay waa kuwa. dadka kale dadaalay ee wax qabtay ee iyagana mudan in la abaal mariyo, kama wada tagayn intii halkan caawa iska weyda insha Allah abaalmarinada dambe ay geli doonaan. gabar iyadana dadaashay oo heerka ay gaartay isgaarsiisay ummadana wax u qabatay aan markan u wacaya kaha xalane waa kaha keen taday ka gudubtay tii ummaday ku dartay. kaha soo dhawow. markana waxaan u yeerayaa Arladi Media oo iyadana kamid ah abaalmarinta dadka la siinayo. Abubakar Albadri ayaa jooga iyo Senator Ilyas ayay ahaayeen. Senator Ilyas waa ka xumahay maanta halkan ma joogo, laakiin haddii la waayo senatorka Albadri ayaa joogaan filayo inuu buuxin karo kaalintiisa. soo dhawow Albadri. عبد الفارح أفقوي يا وعيا أسمع عبد الفارح أفقوي وكيل كي هاي عبد النجية ورجعنا كالصوماليات عبد النجية وحمكليا وكحنا ما أنت عبد النجية لما جوجو لكن وانين دعوة أولمبي كذا حتى أوجهري أن رجينا على المريض ضمن نوع إيمان دونا. sidoo kale waxaan u yeerayaa isna lama jooga halkan laakiin waxaan u wacayaa Maxamed Trump wuxuu noo qaaday wuxuu u qaaday Cabdirasaaq Cali Warsame waa IBS bangiga IBS Cabdirasaaq Cali Warsame founderka dalashada wadankaana haysta kana mid ah dadka maalgelinta ku sameeyay wadankii dib ugu laabtay.
شركة الهجرة يا معلومات مؤمن شركة الهجرة أو قاعدة مؤمن في عن مؤمن أو عامل شركة الهجرة كيف دم بيها markana waxaan u wacayaa shirkadda alhijra oo ka mid ah shirkadaha waddankan laga aasaasay yurub oo dhanna ka shaqaysa muumin ayaan u wacayaa u qaadaya abaalmarinta askari dunia jalid abaalmarinta u dambeysana waxay aadaysaa maxamed bashiir oo ah qunsul sharafeed laakiin ma joogo waa ka xunnahay gudoomiyaha jaalidda maxamed cabdullaahi askari ayaa u qaadaya Thank you.